iyadoo marba marka ka dambaysa ay soo tarayaan wax soo saarka iyo falashada beeraha ay samaynayaan dadweynaha degmada Xudun ee gobolka Sool. Ayaa saaka waxa aanu booqanay mid ka mid ah beeraha oo uu maalgeliyay Guray Cismaan Gacalow oo ka mid ah qurba joogta deegaanka degmada Xudun. Waxaanu kula kulannay Cabdiweli Cismaan Gacalow oo ka mid ah mas'uulka gacanta ku haya beerta, iyadoona ay ku dalxiisayaan Fani Maxamuud Saalax iyo carruurteeda oo ka mid ah qurba joogta deegaanka degmada Xudun kana yimid. عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفاني محمود صالح. وماشي waxaan joognaa we come from the US. ما شاء الله it's so beautiful here. وأد وقروح badan tahay beertu waxa ka tagay aad u yar oo dhirta waaweyn korkayga taalana aan ku jirin that time. marka ma sha Allah waxa arkaa dhirta saytuunka oo aad u qurux badan oo soo baxaysa. waxaan aragnay maxaa la dhahaa baamiyihii aad u qurux badan dhulku wuxuu u baahan yahay maalgashi iyo dulqaad maartay in waqti la siiyo la sabro. ما شاء الله dadka halkan asaasay ما شاء الله aad baan ugu mahadcelinayaa. I so proud of my brothers to make this maartay things and to make this maartay farmer here. ما شاء الله aad bay qurux badan tahay dadka kale waxaan dhihi lahaa sidan oo kale inoogu qurxiyo dalka qudaarta inoo soo baxdo wax oo rara waxba ina ma tarayaan laakiin waxayna tarayaan wax inaynu waxeen maartay dalkeena wax ka samaysano. waxaan kala soo marnay xaafado lagu sameeyo qudaar oo basbaas lagu beeray maxaa la dhahaa magaca maxaa baalkii bal marka wax kasta oo la beeray ifan cawsku waa shaqaynaya marka qudaartuna ka fiican waa manaafacaad dalka wax khasaara ay ma jiraan ilaahayna kama khasaariyo xoogeena maartay dadka reer Xudun dhalinyarada reer Soomaaliya all of them I say just make your country beautiful. you one of the maartay dalkiisa qurxin kara maartay dad kasta wax bedelo dalkiisa marka aan dhalinyarada bal wada ku mashquulshan ma sha Allah waxaan ka soo baxa dalkiina ka shaqeysta hadirsanina dad shaqaalaha halka korkeena ma Ethiopian aan u maleynayay marka ka jeclaan lahaa inay idinku samaysataan oo maartay dadkii dalka berito u noqon lahaa dal indhow idinka waay ma ayna dad kale ku fikirtaan xoogooda idinka waa inaa barata sida loo sameeyo. I say thank you all of you and then wariyaha reporter waxaan leeyahay thank you for inviting us and I appreciate it for your time. Thank you. Have a nice morning. Cabdiweli Cismaan Gacalow oo 20 mitir yihiin 8 mitir yihiin marka intaas naafici weeday ayaa ninka qurba joogay meesha maalgeliyay kana soo saaray ceel riigna keenay labadu biyeelay haddana way shaqaynayaan waxyaalo kale ee looga faa'iideeyo waa laga wacyi karaa oo biyaha magaalada dhan laga waraabiyo oo biyaha macaan magaalada u silo haddii ilaahay ka dhigo oo warshadii iyo qalabkii lagu baahnaa oo keenaan saayina warajeynayna sidaas weeye anaga warkayagu waxaan aad ugu bogaadinaynaa ninka meesha maal gashaday waxaan aad warkayagu qurba joogta degmada Xudun inay sidaas si lamid ah ay uga faa'iideystaan dalkooda hooyo oo ay uga maal gashadaan. Assalaamu calaykum. Cabdullaahi Maxamed Kaarshe TV-ga qaranka